qodobka saddexaad isagana waxa weeye components of child health waxyaalaha ku kooban yahay caafimaadka carruurta waxa ugu horeeya physical health oo ah in jir ahaan ilmaha laga fikiro oo laga fogaado in ilmaha uu xanuunsado xanuunada ay ku dhici karaan marka hore prevention la sameeyo marka ay ku dhacaan si hagaagsan ama isbitaal la xiriirsiyo oo aan la fiirsan waxa dhici karta hooyooyinka qaybtooda ama waalidka qaybtooda inay ilmaha ay guriga ku haystaan iyadoo ay dhici karto inuu xaalad khatar ah ku jiro waxay soo martay mar hooyo iyadoo ilmihii uu shumaya habeenkii oo dhan inay subaxii isbitaalka si caadi ah ilmaha ay u keentay markaasna xaaladii ilmaha xaalad isagoo serious ku jira sidaasna uu ku dhintay marka inay bulshadeena wacyi u yeeshaan oo ilmaha lagu wacyigeliyo hooyada haddii ilmaha maalan uu 3 jeer uu shumo kale inuu isla markiiba goob caafimaad la gaarsiiyo halkaasna ay noqoto in ilmaha degdeg wax loogu qabto waxa kale oo iyadana muhiim ah in nafaqadiisa laga fikiro oo nafaqada guud ahaan dadkeena aad ay ugu liitaan waxa dhici karta hal nooc oo cunada in ilmaha la siiyo taasna koritaanka saameyn ay ku yeelanaysaa mowduuc dhan ayaan kaga hadlaynaa iyo chapter dhan nutritionka iyo nafaqada iyo sida ilmaha loo nafaqeeyo sidoo kale iyadana waxa talaalka in lagu la dadaalo talaalka inta badan waa iska hakrana oo macnaha juhdi lama geliyo fikrad khaldanna waa laga haystaa taas laftigeeda wacyi laga helo oo bulshada wacyi ka helaan sidii ilmaha lagu la dadaali lahaa sababtoo ah xanuuno badan waxaa jira haddii la talaalo ilmaha ay mustaqbalkiisa ay arintaas saameyn ku yeelanayso haddaan la talaalina sidoo kale saameyn xun ku yeelanayso haddaba waxaa fiican in talaalkana lagula dadaalo iyadana waxaa muhiim ah in tanna lama sameeyo oo ayna check up mar walba la sameeyo oo sanadkii haddii la sameyn karo 6 bilood mar sanadkii mar labadii dhowrkii sano mar haddaa intaa la sameyn karin in life ilmaha intuu ilminimada ku jiro in hal mar la baaro waxaa dhici karta ilmo wadnaha ka xanuunsan in la iska haysto oo 12 sano uu ku gaaro guriga taasna xaalad khatar ah way waxa fiican marka in hore check up loo sameeyo check up kaasna la ogaado in xubnihiisa jirka si u shaqeeyaan ma fiican yihiin ma wanaagsan yihiin arintaas saameyn ay ku yeelanaysaa marka si arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin marka wax ka qabasho oo xilli hore ah oo lagala dadaalo jir ahaan in lagula dadaalo ilmaha waxa dhici karta mar qaybtood inaan ku fiicannahay taas oo waalidka haddii uu wacyi haysto inuu arrimahaas wax ka qabtaan ama nafaqadii wax laga qabtaan waxyaalahaas laakiin waxaa jirta iyada qodob aan muhiim ah oo aan waxba laga qabin oo ah mental iyo emotionalka inuu maskaxiyan ilmahan caafimaadkooda iyo emotionkiisa ama qeyradiisa ilmo iska oynaya ama la garaaco ama la sii dilo waxaa jirtay hooyo ilmo maskaxiyan u xanuunsan oo mentally u xanuunsan inay guriga ku haysto oo ay dilayso markasta oo casharka uu khaldo oo kale ama macalinka ka soo cawdo kale taasna ay dhib ku ilmaha ku noqotay uu nacay xataa waalidkiis marka in waalidku ku baraarugsan yahay emotionally ilmahan la rabo inay noqdaan ilmo wel ah oo maskaxiyan ay u jiraan oo xanuunada ay dhici karta maskaxiyan oo in wax laga qabto oo ah inuu ilmaha stress uu ku jiro ilmuhu way dhici kartaa inuu stress ku jiro sida dadka waaweyn ay stress ugu dhacaan sidoo kale inuu ilmaha cabsado cabsi ziyaada ah oo iyadana loo baahan yahay in la address gareeyo ama wax laga qabto haddii aad ku aragtana ay tahay inaad dhakhtar hore kala xiriirso waxaa kaloo iyadana ka mid ah depressionka ama niyad jabka inay ilmaha uu ku dhici karaan weliba ilmaha markay soo qaangaari rabaan agtiisa depressionka ayaa aad ugu badan waxaa la rabaa marka inay hooyada ay ku baraarugsan tahay ama waalidka oo dhan hooyo keliya ma ahee inuu ku baraarugsan yahay arrintaas sidii wax looga qaban lahaa lagula dadaalo oo mentally ilmaha inta badan waa ku liidanaa waxaa sidoo kale iyadana qodobka saddexaad ah inay caqli ahaan ama garaad ahaan ilmaha la koriyo waa dhici karta in arrintaasna aan ku fiicannahay oo in waxbarashadii lagula dadaalo sidoo kale hababka waxbarashada lagula in waqti lagu bixiyo juhdi aad ayaa dhinacaas inay dhici karta ugu fiicannahay sidoo kale waxaa fiican in luqadii lagula dadaalo oo luqadii horta marka ugu horeyso Soomaaliga luqadaha kalena wixii laga bari karo laga baro sidoo kale sidoo mashaakisha u xalin lahaa oo case scenario la dhiso oo la yiraahdo waxaan hadii dhacaan maxaa la sameyn karaa waxaan hadii dhacaan maxaa la sameyn karaa waxa inta ku hoos nool oo cognitive-ka marka laga hadlayo muhiim ah waxa weeye in ilmaha garaadkiisa emotional intelligence waxa la yiraahdaa jira oo ah qeyra garaadka in ilmaha uu xakameyn karo dadka si hagaagsan ula dhaqmi karo oo bulshada si fiican ula dhaqmi karo qodobka ku xiga ah laakiin macnaha labadaas way isku dhex jiraan oo aynay ilmahan garaadkiisa uu noqdo mid wel ah oo hagaagsan oo bulshada ka soo dhex bixi kara dadkana wax tari kara hadhoodi markuu weynaado oo asaaska ayaa waxay tahay in lagala dadaalo
hadhowdii markaa hadduu qof wanaagsan oo caafimaadkiisa ku wanaagsan uu noqdo waxay wax ka taraysaa bulshada inuu wax taro qodobka kale oo isagana muhiimka waxa weeye social developmentiga oo isaga waan ka hadalnay waan filayaa macnaha in loo deegaan hagaagsan oo مثلا oo caafimaad qaba مثلا deegaan la isdilayo ama dhibaato ka jirta hadduu ilmaha ku nool yahay ilmaha sidaas oo kale uu noqon karaa haddii مثلا hadda ilmaha la dhex geeyo meel qaad lagu cunayo ama waxyaalaha xun la sameynayo sidaas oo kale ilmaha noqonaya marka waxa la rabaa deegaan hagaagsan oo caafimaadkiisa mentally iyo jir ahaan uu ku hagaagsan yahay in lagula dadaalo loo sameeyo asxaab wanaagsan asxaabtaas oo hadhowdi keeni karta inuu noqdo ilmo wanaagsan sababtoo qofka shanta qof ku hareeraysan ayuu marka dambe noqonaya marka waxa fiican in ilmaha aad u doortid asxaab wanaagsan oo taas saameyn ay ku yeelanaysaa waxa kale oo iyadana ah preventive care in laga hortago xanuunada ay dhici karaan in ilmaha ay khatar ku keenaan oo waxa waa horaan uga soo sheekeynay waxa weeye in talaalka lagu dadaalo in la sameeyo check up ama screening wax la yiraahdo in marka ugu horeysa la address gareeyo ama lagu sameeyo falgelin haddii xanuun oo ilmahaasi uu ku dhaco oo xanuunada laga hor markay dhacaan ba lagula dadaalo in ilmaha iska haysane aad kula dadaasho inaad sida aad wax uga qaban lahayd dadka caafimaadka oo dhici karta inay casharkan wax ka dhageysanayaan iyadana waxaa muhiim ah inay focus saaraan arrimahan oo preventive care-ka qayb ka qaybtaan sidii wacyiga bulshada ay uga qayb qaadan lahayd qodobka kale oo isagana waxa weeye qodobka lixaad family and community support oo bulshadu inay iyo community-ga iyo waalidka laftirkiisa iyo qoyska inay ka imaanayso taageero oo ah dhinaca caafimaadka inuu ilmahan noqdo ilmo caafimaad qaba مثلا ilmaha waa dhici karta gurigii uu joogo dadkii ay wada joogaan inuu ilmahaas lugta ka soo dhaawacmo ama jirka wax soo gaaraan waxaasna uu qarsanayo aan lagu baraarugin hadhowna ay dhici karto inay disability u keento oo xilli dambe la ogaado isagoo ilmihii lugtii jees ka noqday taas marka waxaa loo baahan yahay familiga markay ogaadaan xaaladahaas oo kale ama dariska ama bulshada guud ahaan inay ilmaha ay arkaan dhaawac ku dhacay oo kale inay waalidkiis la socodsiiyaan oo waalidkana uu address gareeyo ama waxa uu ka qabto xilli horeba oo la ogaado waxaas inaysan ilmaha dhibaato mustaqbali ah u keeni karin waxa kale oo iyadana ah in la sameeyo access health care-ka macnaha in ay heli karaan adeeg caafimaad oo hagaagsan oo deegaan kasta oo xilli meel ugu dhow in laga shaqeeyo guud ahaan waxaas waa mas'uuliyad bulsho iyo mas'uuliyad deegaan iyo mas'uuliyad dawladda saaran iyo dadka oo dhan macnaha waxa la rabaa مثلا ilmaha deegaanka uu ku nool yahay inuu ka heli karo adeeg caafimaad oo ugu dhow مثلا in NCH laga sameeyo health post laga sameeyo xaafadda uu degan yahay tuulada uu degan yahay tuulooyin dhan baa dhici karta inaysan haysan health posts ama goob caafimaad waxa kale oo iyadana muhiim ah in la address gareeyo arrintaas marka muhiim ay u tahay caafimaadka oo asaasiyaadka ay ka mid tahay in la access-ka loo helo in health care-ka uu noqdo mid baaha oo bulshada oo dhan gaara oo deegaan kasta iyo tuulo kasta ilmaha jooga ay helaan adeeg caafimaad waxa kale oo iyadana muhiim ah in equity-ga ama yani guud ahaan dadka oo dhan ciyaalka oo dhan inay helaan adeeg caafimaad oo caafimaadkooda laga fikiro oo aan qayb kaliya caafimaadka la saarinay guud ahaan si loo helo bulsho caafimaad qabta waa in marka hore lagu dadaala caafimaadka carruurta okay guud ahaan waxaa la yidhi caafimaadka carruurta waxaa loo aqoonsadaa macnaha carruurta inay u nugul yihiin xanuunada iyo dhibaatooyinka caafimaad taasoo loo baahan yahay marka in la fiiro gaar ah loo yeesho oo lagu soo jiidiyo macnaha focuskii bulshada iyo dawladda iyo nidaamyada jira kulli ay kusoo jeedaan in caafimaadka maadaama bulshada la rabo in la kobciyo oo caafimaadkooda laga shaqeeyo in marka hore child healthiga focus la saaro taasoo macnaha ah in ilmahaasi si hagaagsan loo support gareeyo inay si hagaagsan u koraan oo well-being ay noqdaan ilmahaas arrimaha marka waxay noqonaysaa marka arrimahaasna waxay noqonaysaa in si hab dhammaystirana wax looga qabto kaliya ma aha
caafimaadka jirka waxaa kaloo wax laga qabanaya waxa weeye waa mentally maskaxiyan ilmaha inuu yahay mid caafimaad qaba emotionalkiisa inuu qiradiisa ay noqoto mid hagaagsan ama emotional intelligence ha noqdo ama emotionalka kale ha noqdee inuu noqdo ilmo caafimaad qaba sidoo kale korriinshihiisa ama caqligiisa garaadkiisa inuu noqdo mid laga fikiro oo waqti lagu bixiyo iyo inuu socially noqdo ilmahaas mid hagaagsan oo socially uusan noqon mid xirxiran macnaha social marka laga hadlayo waxa weeye inuusan noqon mid xirxiran oo dadka xiriir la yeesho oo cunuga laga dhigo cunug mujtamaca dhex geli kara oo wax ka qabsan kara oo dadkii wax u qaban kara oo dadkii la xiriiri kara taasna waxay u baahan tahay marka hore in xilli hore wax laga qabto hoos laga soo bilaabo oo waalidka ay ka bilaabato mas'uuliyadaas kadibna bulshada guud ahaan ay u gudubto